Bilowga filimka waxaa u jeednaa nin halkan lagu haystay koox maafiya haysta lagu magacaabo Alakis, laakiin dhammaan nimankan waxay u sheegeen isaga cid badbaadin karta inaysan jirin maanta uu dhimanayo, laakiin isaga ku qaylinaya badbaadin. Laakiin ugu dambeyntii nin ayaa soo galay goobtan aan la aqoon asalkiisa meel uu ka yimid, xitaa magaciisa qofna uusan aqoon. Kadibna wuxuu u sheegay ninkan in isagu badbaadinayo, laakiin nimanka waxay ku dhaheen dhintaaba la aasi doona. Laakiin ugu dambeyntii ninkan wuxuu bilaabay dhammaan nimanka inuu meeshan ku baabi'iyo. Ugu dambeyntii uu ninka Alakis goobtan ka badbaadiyo. Alakis ninkan wuxuu ku dhahay waad mahadsantahay maadaama ay badbaadisay, laakiin ma jiro qof bilaa sabab qofka lagu caawinayo sababtoo ah caawinaysa aan u baahanahay. Haddaad ii sheegto waa macquul inaan ku caawiyo. Laakiin ninkan wuxuu sheegay aniga kaaga baahnahay hantidaada iyo naftaada, laakiin kaliya waxaan kaaga baahanahay information ama xog inay siisid. Dhanka kale waxaan u jeednaa ganacsade lagu magacaabo Hoy kaas oo jooga iskale ama kambaniga weyn ee lagu magacaabo Hoy Company ee dhammaan dalka Hindiya dhan ka taliya. Ugu dambeyntii Hoy maadaama halkan kula sheegay ganacsade ka mid ah ganacsatada dalka Hindiya, ugu dambeyntii uu ka soo baxay goobtan. Hoy isagoo ku mashquulsan telefoonkiisa ama qof kala hadlaya ayaa meeshan gaarigiisa dhan gaari kale lagu jiirsiiyey ama goobtan oo shil ka galay. Shilkaas oo u muuqda weliba mid qorshaysan oo laga soo shaqeeyey. Ugu dambeyntii goobtan waxaa imanaya wiilka uu dhalay Hoy kaasoo lagu magacaabo Vishnu. Kadibna goobtan wuxuu ku dilayaa ama uu ku cilbaxaya kuwa looga shakisanaa dilka aabihiis. Meeshan ayuu dhammaantood kusoo gabagabeynaya. Dhanka kale waxaa la nabaaya gabadh lagu magacaabo Amrita kaasoo ka tirsan ciidanka booliska. Meeshan ayay ka baadhisay 3 nin oo lagu dilay, laakiin Amrita meeshan caddayn ayay ka helaysaa. Kadibna waxay u sheegaysaa ninka dilka geystay ama qofka mishanka sameeyey inuu yahay qof aad iyo aad u caqli badan, sababtoo wax kasta isagu ka taxadaray. Laakiin isla markiiba goobtan waxaa imanaya ninkiina bilowga filimka kusoo arkayna oo lagu magacaabo Ashok. Ashok wuxuu ka tirsan yahay ciidamada booliska, weliba waa askari aad iyo aad taliyaha ugu kalsoon yahay. Kadibna kiiskii gabadhii Amrita ay gacanta ku haysay taliya wuxuu ku wareejinaya Ashok, weliba wuxuu ku dhahay waxaan u baahanahay kiiskan inaad si degdeg kusoo gabagabaysay. Tanna waxaan ogaanaa taliyahan inuu Ashok ku kalsoon yahay. Ugu dambeyntii Ashokna wuxuu dhahay taliyahan adiga ogtaa hawshan wuu soo gabagabaynayaa. Dhanka kale waxaan ogaanaa khasnadu iska leeyahay ninkii lagu magacaabay Hoy ee la dilay. Khasnadaas qof kasta wuxuu doonaya waxa ku jira inuu ogaado, laakiin khasnada furaheedu wuxuu yeelaa magaalada Mumbai waxaana lagu magacaabaa Black Box. Laakiin wiilkiisa iyo hanti dhowrayaashiisa ayaa ka taxadaray, sababtoo khasnada furaheedu waxaa doonaya niman badan oo burcada si ay gacanta ugu dhigi lahaayeen. Dhanka kale Ashok iyo saaxiibadiis kiiskay gacanta ku hayeen wuxuu ahaa kiis aad iyo aad u adag, laakiin Amrita iyadu maysan aaminsanayn ninkan inuu kiiskan xalinayo. Waxay u haystay qof iska ciyaaraya, laakiin dhanka shaqada marka laga soo tago Amrita isaga si dhab ah u jeclaatay, weliba waxay uga sheekeynaysaa nolosheeda iyo dhibaatada soo martay. Kadibna waxay dhahaysaa aniga cid aan haysta male, adigoo kaliya ku haystaa mana doonaya adiga inaan ku waayo. Laakiin Ashok wuxuu sheegay isagu inuu ballan ka qaaday iyada inta nolosheeda ka dhiban uu la joogayo, midana iyada aad bay u farxad gelinaysaa. Dhanka kale waxaan ogaanaynaa ninkii booliska ay ku daba jireen ama Ashok iyo saaxiibadiisa ay doonayaan. Ashok habeenkii wuxuu kula kulmayaa ninkii baarkan, kadibna wuxuu isaga dhigayaa qof shacab ah, weliba khamri ayuu ka dhajinaya, kadibna wuu wareysanaya. Laakiin ninkan ayaa u sheegaya aniga waxaan doonayaa inaan dhaco Black Box alaab lagu magacaabo taas oo furta khasnada adduunka ugu weyn. Uu iska leeyahay ninka lagu magacaabo Hoy hadafkayga ugu weyn ee nolosha wax kale maaha waa inaan noqdo millionaire, sida awgeed khasnadaas aniga waa inaan furaheeda dhaco. Dhanka kale waxaan ogaanaynaa wiilka Vishnu lagu magacaabo u dhalay Hoy, gabadhan oo aabihiis la taliya khaas u ahaan jirtay ayuu wuxuu ku dhahayaa waxaan u baahanaa Black Box-kaas adiga inaad ii soo qaadid, sababtoo aniga waa kugu kalsoonahay. gabadhanna way ka ogolaanaysaa. Ugu dambeyntii gudaha Mumbai markay timaado Black Box-ka ay soo qaado, koox shuftaa oo doonaya inay Black Box-ka ka qaadan ayaa soo weeraraya, laakiin ciidamada booliska uu hogaaminayo Ashok ayaa goobtan ka badbaadinaya. Iyadana Black Box-ka way soo qaadaysaa, weliba waxay keenaysaa bangi ka mid ah bangiyada ku yaala magaalada Mumbai. Dhanka kalena ninkii tuugga ahaa isagu wuu la socday wax walba, gabadhani meesha dhigtay Black Box-ka wuu ogaa. Sidoo kalena Ashok iyo tiimkiisa iyagana way la socdeen. Ugu dambeyntii Ashokna tiimka ayuu goobtan u soo dirayaa. Sidoo kale Ashok goobta ayuu kaga harayaa tiimka, laakiin ninkii tuugga ahaa goobtan ayuu imanaya, weliba Black Box-ka ayuu ka qaadanaya goobtan, saaxiibkiisa ayuuna u dhiibaya. Sidoo kale Ashok goobtii saldhigga booliska ayuu dab qabadsiinaya, kadibna goobtan ayuu kasoo baxaya. Laakiin ugu dambeyntii ninkii tuugga ahaa booliska ayay gacanta ku qabanayaan. Ninkan tuugga saaxiibkiisu Black Box-ka u dhiibay. Black Box-ka wuxuu ku wareejinaya Ashok, isagana Ashok ayuu la shaqaynayay, laakiin taliyaha booliska ayaa loo soo gudbinaya ninka la shaqaynaya inuusan Ashok ahayn, laakiin ninka tuugga uu Ashok yahay. Tanna dhammaantood ka yaabinaysaa. Ninkan Ashok lagu magacaabo booliska la shaqaynaya magaciisa dhabta Ashok ma waa Saho, weliba isagu waa tuug manaxa adduunka dhan wanted-ka. Ugu dambeyntiina meeshan qorshahan waxaan ogaanaynaa Ashok inuu isagu ahaa askari daacada kaas oo la shaqaynaya ciidanka booliska, laakiin Saho ayaa wax walba bedelay. Tanna waxay ahayd taxaddarrada ay ciidanka booliska India sameeyeen. Ugu dambeyntii Saho goobtii ayuu ka kaxaysanaya isagii saaxiibkiis, weliba waxay qaadanayaan Black Box-kii. Dhanka kale tuugga weyn ee lagu magacaabo Devraj isagii kooxdiisu waxay baarayeen ninkii qaatay Black Box-ka. Dhanka kale
Amrita waxay la kulmaysaa isla markiiba Saho kadibna waxay ku salaamaysaa xabad. Weliba waxay u sheegaysaa inuu iyada kaliya uusan khiyaamin xitaa uu waddanka xataa khiyaamay. Hadda kadibna waddanka uu ka yahay wanted ama tuug weyn. Laakiin isla markaaba waxaa soo weeraray ciidamo ka socda dhanka iyo Defaaj. Laakiin xabadahan ku socda way ka badbaadayaan. Saho iyo Amrita labadooda way heshiinayaan. Laakiin waxaan ogaanaa Amrita iyada qorshe kale ay wadataa. Weliba waxay doonaysaa Saho inay booliska gacanta u geliso. Iyadana waxaa soo diray Asho. Laakiin Defaaj sidan kaga hali maayo. Saho ugu dambeyntiina gabadhii Amrita ayuu xabad ku dhufanaya. Sidoo kalena Saha gacanta ayaa ku dhigan kadibna wuxuu ku halkaateynayaa inuu dilayo gabadhan Amrita iyada dhaawac oo weli uu keenay black boxkiisa. Laakiin Saho wuxuu heshiis la gelayaa hooy wiilkiisa Vishnu. Weliba isaga ayuu ku wareejinayaa black boxka. Markan Saho wuxuu iska dhigay inuu la shaqeynayo Defaaj. Laakiin saaxiibadiisa Amrita ciidamada Defaaj iyagoo dilaya waxaa badbaadinaya ciidamada Vishnu. Ugu dambeyntii lacagtii hooy uu ka qaatay Defaaj dhammaan lacagtaas dhan waxaa kala soo goosanaya Saho. Dhanka kale Ashok iyo ciidamada booliskana waxay daba taagnaayeen Saho siday gacanta ugu soo dhigi lahaayeen. Kadibna Ashok wuxuu hikaateynaya Ashok saaxiibkiis weliba isagoo u sheegay hadduu ninka gacanta usoo gelin waayo inuu dhammaan faamilkiisa dhan soo abtarayo. Saho saaxiibkiisna wax walba uu sheegaya dhammaan qorshayaasha Saho u degan iyo wuxuu sameynayo. Dhanka kale Saho saaxiibkiis uu sheegaya wax walba ku sameeyay Ashok. Laakiin waxaan ogaanaa dadku gacanta ku haya Ashok inaysan ahayn Saho saaxiibkiis faamilkiisa. Waxaana waxay qorshu ka shaqeeyay ama ugu talagalay Saho. Sidoo kale dhammaan lacagtii uu hooy ka qaatay Defaaj dib baa ugu soo celinaya Saho. Dhanka kale Ashok iyo ciidamada booliska waxay qabanayaan kontenaradii lacagta u waday Saho. Laakiin nasiib xumo buundadii dhammaan ay joogeen ayuu Saho duminaya. Kadibna Saho goobtan ay ka soo baxsanaya. Laakiin mid ka mid ah ciidamada Defaaj ayaa ku doonaya inuu wiish ku dilo Saho. Laakiin nasiib wanaag Saho midda uu ka badbaadaya. Laakiin ciidamada booliska kontenaradii gacanta ku dhigayaan maaha kuwa lacag ku jirto. Saho qorshahan mar ay uga taxadaray dhanka ciidanka booliska taagnayn maaha dhanka kale ay kontenaradii jambisiyay. Kuwana waxaa ku jahwareerinaya ama ku khalday ciidanka booliska. Laakiin nasiib xumo ciidamada booliska gacanta ay ku dhigayaan Saho. Defaaj wuxuu soo wacaya taliyaha ciidanka booliska weliba isagoo u sheegay inuu u keeno madaxa Saho ama isagoo nool haddii kale isaga la waayo. Taliyaha booliskana midda uu ogolaanaya. Taliyaha ciidanka booliska Saho wuu soo wadaya kadib wuxuu keenayaa goob ka baxsan magaalada. Goobtana waxaa jooga ciidamo aad iyo aad u halis badan kuwaas wax kasta laga filan karo. Ciidamadan meel goobta jooga waxay si xun u garaacayaan ninkii ahaa Saho. Ugu dambeyntii Saho markiisa ayaa la gaaraya isagana wuu xanaaqaya. Ugu dambeyntii ciidanka dhammaantood cagta ay ku hoosmeynaya wuu baabiinaya. Saho goobtan ayuu soo fadhiisanaya weliba isagoo ku jira Defaaj. Defaaj goobtan markuu yimaado wuxuu malaynaya Saho in la dilay laakiin wuxuu ogaanaya ciidankiisa in la baabiyey. Defaaj aad buu xanaaqaya kadibna wuxuu dalbanaya ciidan kale. Laakiin nasiib xumo ciidanka uu dalbaday Defaaj isaga ay ku soo jeesanayaan. Saho dhankiisa ay soo safanayaan. Saho wuxuu sheegay inuu yahay isaga wiilka hooy u dhalay. Dhaxal sugaha boqortooyada hooyna cid kale uusan ahayn inuu isagu yahay. Weliba uu ogyahay aabihiis isagu inuu dilay. Defaaj dhulka ayaa ku soo yaraanaya. Ugu dambeyntina Saho ayaa goobtan ku dilaya. Sidoo kale xitaa naagtii boxka haysay iyada waxay u shaqeynaysay Defaaj. Ugu dambeyntii gudaha khasnada markay soo gashay ay ogaatay dhaxal sugaha hooy inuu yahay Saho. Meeshan ayay ku dhimanaysaa. Sidoo kale Saho qof kasta oo ka dambeeyay dilka aabihiis ayuu dilaya. Kadibna banaanka ayuu soo dhigaya wuxuuna ku fadhiisanaya kursiga boqortooyada hooy. Dhammaan ganacsatadii midan lama filan ayay ku noqonaysaa. Laakiin Amrita waddanka dhan ay iskaga soo tagaysaa. Laakiin isla markii waxaa imanaya Saho. Saho wuxuu sheegaya weli inuu isagu jecel yahay middan qorshihiisa aysan ka mid ahayn laakiin uu si dhab u jeclaaday. Labadooda goobtan ay ku midoobayaan. Saaxiib yaal filimkan halkan uu ku eegaya hadday tahay markana soo boqo channelka subscribe noo saar. Haddaa hore loo muuqaal kale noo dheh aad iyo aad baad u mahadsantahay. Bye bye.